Cashaaka mar kaliya lagu waabariistay gubashada meheradani oo ku taala xaafadda Sheekh Casmaan ee galbeedka magaalada Boorama waxaana kaliya ka badbaaday shaqaalaha meherada oo hoos hurday waxaana meheradani ay haysay qaybaha kala duwan ee hurdooyinka fadhiyada iyo noocyo kala duwan oo kamid ah alaabaha guryaha waxaana meheradani iska leh ganacsade Cabdullaahi Yuusuf Aare oo kamid ah ganacsatada gobolka Awdal warbaahinta Cishqi TV magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا هادين مهتدين. إله نغدق كوها نوصن دادكنا هنوني دمان دادكا سوماليات برنامج كقفاعو كدقي سنة راديو بورمي CKMS 102.7 FM كندا وانا يسومالي كنديان تي في برنامج كقفاعو مانتو أمانينا حدا بشا سبتمبر 2024 waxaa saaka magaalada Boorama lagu waabariistay meel baayac mushtara oo lagu iibiyo qalabka hurdada noocyadiisa kala duwan fadhiyada intaba oo uu leeyahay Cabdullaahi Yuusuf Aare oo gubatay haddaba dadka barnaamijka meel walba ka dhageysanaya waxaan rabaa dadka inaan la wadaago warka marka la yiraahdo dadku inay ogaadaan weeye warka cidda laga qaadanayo ilaahay baa inoo sheegay kitaabka quraanka ayuu inoogu yaalaa iyo xadiista nabiga dadkuna inay ogaadaan ay muhiim tahay ilaahay wuxuu leeyahay wa in ja'akum faasiqun binabayin fatabayanu dadku Soomaalidu in badan warka habka loo baaro ee loo qaato ma yaqaanaan cid walbana way dhageystaan way wareejiyaan waxaan rabaa inay idinka faa'iideysataan oo ogaataan ilaahay wuxuu leeyahay warka faasiqa ninka la yiraahdo faasiqnimadu daacadda ilaahay baa looga baxaa nin baad been ku taqaanaa nin baad diin xumo ku taqaanaa haddana warkiisa qaadataa war laba yiraahdo waxaan rabaa ummadda meel walba barnaamijkan ka dhageysanaysa radio Boorame Somali Canadian TV oo barnaamij aan ugu talagalay Soomaaliyo dhan inay ka faa'iideystaan aqoon oo halhayskiisu yahay educate and elevate barnaamijyo kala duwan ka baxaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtana sida ay tahay aan wax ugu gaarsiino waxaan idinka warramayaa dhacdadii ka dhacday saaka lagu waabariisay magaalada Boorame in siyaabo fara badan oo kala duwan idaacadaha TV-yada wararka kuwa had iyo jeer social media kule page-ka intuba ay siday rabaan uga hadlayaan laakiin waxaan rabaa ummadda inaan u xaqiijiyo warkani saaka magaalada Boorame ka dhacay oo xitaa dadka ashqaas kamid ah oo dhibanayaal oo sheegaya oo leh aniga waxaan la igu sameeyay waxaygii baa la yeelay inaan dadka u cadeeyo in warkan dhacay iyo sidana waxay u dhacday horta inuu qadar yahay qadarkiina uu yahay sabab waxaan rabaa inaan idin cadeeyo baaritaan anagu aan sameynay oo nula hadalay gobolka Awdal in ilaa imikada wixii ka dambeeyay dabkaasi aanu cadeyn dabka meesha qabsaday cid lagu eedeeyo ama cid lagu sheego ilaa imikada aanay jirin baaritaanna la wado oo gobolku wado midna aan dadka uga digayo waxaan ummadda uga digayaa waqtigan waxa uu jirta fidno dadku inay ogaadaan way kelmadda fidno culimadu waxay yiraahdaan waxay ka dhalataa wax la neceb yahay qasli bay keentaa Soomaali maanta qabiil baa la isku haystaa waxaad arkaysaa dad social media intuu soo fadhiisto xitaa ma kuwan hablahoogii sidaa loo galay ma kuwan dabkoogii sidaa loogu shidayo ma kuwan xildhibaanadoodii saalay waxaasoo dhan waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto inay tahay bogobagaadho iyo namiimo iyo isku dir shacabka bulshada dhexdeeda Soomaaliyeed la raba dad nabada in nabada loogu bedelo amni darro waxyaalaha loo baahan yahay weeye amnigu inuu muhiim yahay oo dadku nabad ku noolaado oo waxa culimadu yiraahdaan dawlad dulmiya waxay dhaantaa dawlad la'aan dulmi dadka lagu hayo laakiin dawlad la'aan bay dhaantaa anigu waxaan ahay nin ka wada madax bannaan dhammaan maamulada Soomaaliyeed oo dhan haddana laakiin waxaan qabaa fikra inuu dadku ilaaliyo diinka muslimka xurmadiisa dadka madaxda sharaftooda waxay doonaan baahaadana maadaama ay muslim yihiin in la ilaaliyo waana waxay diintu inaamrayso waxaan rabaa dadku inay ogaadaan dulmigu waa laba kalmadood waxad gudub iyo gardarro waxaan ummadda la wadaagayaa dhacdadan dhacday oo runtii ahayd dhacdo naxdin la qadarna ku timid
ilaa imika dadku sida uga warramayo aanay ahayn inaan idiin caddeeyo oonay caddayn sababtii waxaanay ku dhacday oo baadhitaan lagu jiro gobolka. waxaan ummadda la wadaagayaa oo kale arrinta Safiya Tusma waxaa la ii sheegay aniga oo xogagaal la iigu warramay wasiirka daakhiliga Somaliland mar la weydiiyey Safiya Tusmo in uu sheegay annagu waxaan u qabno ama wax xadhigoo meel u yaallaa inaanay jirin. waa warka aan hayo weeyo dadka ugu dhow ay wada hadlaan warka la ii sheegay wey. waxaan markaa dadka la wadaagayaa dad baa raba gobolkan awdal. anu dadka gobolka ka imid baanahay, dadka degaankaanahay. si kaste Somaliland ha laysku khilaafo, ha layskaga hor yimaado, anu waxaan leeyahay waxaa wax lagu xalili kartaa in dadku wada hadlo. dabadeed sidii uu xadiiska nebigu ahaa sala allahu calayhi wasalam, man ra'aa minkum munkar falyuqayir biyadihi. hadduuna dadku awooddooda wax ku doorin karin ha hadlo ama qalbigaa ka naco. waa xadiiska nebiga wey. dadkuna inay masaa'ilkan socdaa waktigan lagu jiro dhayalsadaan maha. siiba dhalinyarta waxaan rabaa dadku waad hadli kartaan, wax waad sheegi kartaan, laakiin dhiig qof muslina inuu kuu caddaado inay iska banaysato sina sharcigu uma bannaana. walaa kuwa maamulka ayaanu u bannaanayn oo xaqdarro dadka ku laaya, ku xidhxidha, iyo kuwa shacabka. haddaba waxaan rabaa dadka barnaamijka meel walba ka dhegaysanaya in barnaamijkani Soomaaloo dhan dhex u yahay. meel kasta sida aan wax uga maqallo ilaahay nagu ogyahayna u gaarsiino. halka barnaamijka aad ka dhegaysanaysaanna waa CKMS 102.7 FM Radio Boorame, kana daawanaysaan Somali Kadeen TV. waa anigoo tabaqtiraa Xaamud Suldaan Cali Cilmi Suldaan. wixii gadaal ka soo kordhana inaan idinla socodsiinayno. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.